ugu horeyn waan idin salaamay ku soo dhawaada barnaamijkii kaskaas baax xalqadii koowaad magaca ilaah cirka leh ee waajibka dhaaciisu tahay baan ku dhaartay ee dhulka imakansiiyey ee qalqigiisa igu saliday boqor yahow meesha jooga ee waliba addoomaha ka midka ahi ee Masar iyo inta u dhow xukuma waxaad ogtahay inagu inaanu nahay askarta Ilaahay carada Ilaahay baan laga abuuray wixii rabbi nacana waana lagu saliday waxaan dhul soo baabiyay baa kugu filan cimri qaadasho ee dadka kale ku cibra qaado amarkiina noo dhib intaanu ceebtiina muuqan oo gafkiina idinku dhicin annaga ku ooyaa uma naxariisano kuwashta kooda uma qalbi dabacno dhulku waanu furanay fasaadku waanu ka tirtirnay waajib idinka od baa idinku ah annagana eryasho ka idin hoyin kara xagee siifteeda ka gali kartaan gacanteeda lagama baxsan karo fardahayga lagama dheereeyo siifteedu waa sida danabka warmahiguna waa kuwa wax jeexa qalbiyadeedu waa sida buuraha tiradeeduna waa sida ciida dhufays la galaa wax nagama celiso ciidan la sameystaa waxay nagu anfacaan baryadiina la nooma aqbalo waayo xaaraantaad cunteen oo salaantaad celisaan aad diideen oo dhaartaad beeniseen oo caswaalidiinkaadii ku badan ku bishaaraysta dulinimo warka ha ugu badinina jawaabta dhaqso u soo dira tani waa fariin uu dirayay Hulakow amiirkii dhigyacabka ahaa ee Tataarka fariintani waxaa ka muuqda kibir iyo liidid la liidaya muslimiinta dalka Masar waayo ku dhawaad 40 sano muslim laga adkaada ma ahe muslim wax iska dhiciyaa lama arag Masar waxaa xukumayay Maxamuud ibn Mamduud oo ku magac dheeraa Qudus Masar waxay ahayd dawladdii afraad ee muslimiinta ugu awood badneed ciidankeeda uu isku dhacay oo kala qaybsamay hareeraheeda oo dhan dagaal baa kala dhaxeeyay inta waxaa raacay dhibaato dhaqaale inay ka jirtay waxaana ku soo wajahan dawladda ugu awood badneed ee caalamka aan weligeed dagaal lagu jabin sidoo uu maareeyay Qudus xaaladda noocan ah gudihii oo haystaa dibadda iyo dawladaha u dhawaa oo la colaadsan dhaqaale burbur oo jira dawlad xoogan ee Tataar oo ku soo wajahan intaas oo dhami ayadoo jirta buu go'aansaday inuu dagaalamo in dagaal la galaa waxay u baahan tahay xeerad iyo qorshe aad loogu fakaray Qudus wuxuu sameeyay talaabooyinkii isbedelka wadan gudihiisa haystaa suurtagal ma ahan cadow banaanka kaga yimid in iska dhiciyaan Qudus wuxuu sameeyay talaabooyinkii uu ku mideynayay dadkiisa wuxuu iskugu yeeray aqoon-yahanadii odayaashii iyo jananadii Masar wuxuuna ku yiri waan dagaalameynaa sidoo kale wuxuu dib u soo celiyay ciidankii gadoodsanaa runtii wuu ogaa soo celinta ciidanka inay halis ku tahay kursigiisa balse hogaamiyahan kursigiisa waxaa kaga horeeya sida loo badbaadin lahaa dawladda muslimka ah sidoo kale wuxuu sameeyay afin dhab ah oo wuxuu xaliyay khilaafkii gudaha sidoo kale wuxuu heshiis la galay dawladihii dariska intaa kadib waxaa dhacay dagaalkii Tataarka iyo muslimiintii Masar wuxuu ka dhacay Aynu Jaaluud oo ahayd meel 65 kiiloomitir u jirtay Xiddiin meeshuu Salaaxudiin ku jabiyay Kirishtanka 60 kiiloomitirna u jirtay Yarmoug meeshii saxaabada ku dagaalameen ugu dambeyn Masar way guuleysatay Tataarna wuu jabay guushu waxay ku timaadaa midnimo waxba ha la yaabin Kenya oo sheeganaysa badeena ee ma sheegateen haddaan midaysanahay oo aan is ogolnahay shalay waxaanu lahayn hal calan oo buluug ah balse maanta waxaanu leenahay